وعنا ونكسو وايد سلامية صحابته كحلن دقل aqooneed keenan ama buqcadan ayna kulmisay caalami official waxaan rajeynayaa qof kasta inuu ku caafimaad qabo buqcadiisa muuqaalkan waxa laga yaabaa in ku geedisanaado muuqaaladii hore waxaan kaga hadlaynaa lesson ama waaxisad weey muuqaalkan waayahay muuqaalkan dhimaadkiisa waxaad baran doontaa phrasal verb wuxuu yahay sidoo kale come along phrasal verb kala yiraahdo maxaa loo isticmaalaa waayahay hore ayaan uga hadlay phrasal verb laakiin asxaab badan oo inagu soo biirtay degalkeenan awgeed waa inaan markaa ka hadlaa oo aan wax weeye dib u sheegaa macnihiisu wuxuu ahaa waayahay phrasal verb waxa weeye waa isku darka la isku daro laba eray oo macnayaal kala duwan leh marka asalkooda hore macnayaal kala duwan leh laakiin marka la isku daro sameeya hal macne intaas ayaa wax loo yaqaanaa phrasal verb waayahay luqad kastana way leedahay haddaba muuqaalkan maanta waxaan soo qaadan doonaa hal phrasal verb keliyata kaasi oo leh 3 macne markaan ku leeyahay 3 macne leh waxaan ka wadaa 3 jeer la kala isticmaali karayo xaalad iyo xaalad iyo xaalad inaad la fahanto aan jeclahay intaa waayahay xaaladda koobaad sidee loo isticmaali karayaa wajigiisa koobaad phrasal verbkan waa sidee phrasal verbka hore aynu soo sheegnay waa come alone xaaladiisa koobaad waxaa loo isticmaalaa marka la doonayo inuu qofku u yiraahdo isoo raac Ingiriista wuxuu oranayaa come alone tusaale ahaan oo kale do you want to come alone middoon saad soo raacdo kale iyo muuqaalo badan oo xaqan idinka soo bixi doona waayahay micnaha labaad ama wajiga labaad sidaad u isticmaalaysaa dana come alone waxaad u isticmaalaysaa come alone marka aad leedahay wax horumar sameynaya aad ka hadlayso kale sidii aad leedahay ka waran project-kaaga halku maraya horumar ku sameynaya waa sidee how your project is coming along inaad ku tiraahdo qof ka waran Ingiriistaada halkay maraysa yacni horumar ma sameysay ma isbedeshay how your English is coming along intayna la fahantaan jeclahay waayahay ana gudbo wajiga u dambeeya wajigan waxa loo isticmaalayaa xaaladan oo qofku markuu doonayo inuu yiraahdo arrive ama appear soo muuqasho ama imaansho tusaale ahaan oo kale inaad tiraahdo waxaan sugayay baskii 2 saacadood ilaa uu yimi markii u dambeysay marka waa imaansho dadna waxaa oranaysaa I have been waiting for the bus until it came along ilaa markii uu yimi iyo qof sidii xaaladan oo kale sawiro stage taagan oo doonaya inuu qofku raxdo stage ka adaguna soo karan yacni adaguna soo muuqdo dadku ku arkaan wuxuu ku oranayaa come here may ku oran maayo wuxuu ku oranayaa come along saddexdaas wajah ayaa loo isticmaalaa aad badi salaam iyo salaam